milkiilaha connect ayaa shaashadeeda kaga muuqda waa qaybtii labaad ee hambalyadii loo soo diray ra'iisul wasaaraha uu ku muteystay inuu isu keeno Soomaali weyn qaybtii labaad Umar Shukri milkiilaha maqaayadda connect ku soo dhaw barnaamijka arrimaha bulshada iyo hambalyooyinka waa mahadsantahay suxufi Salwo iyo Kalsan TV waa mahadsantihiin ma sha Allah ra'iisul wasaaraheena Maxamed Xuseen Roble shaqada uu qabtay oo ummadda Soomaaliyeed uu ku badbaadiyay ma sha Allah oo taariikhiga ah oo lama ilaawaanka ah waa kugu hambalyeynayna ra'iisul wasaare aad iyo aad haddaan reer Stockholm dadkii aad ka timid asalkaaga ahaa aad iyo aad aan ku hambalyeynayna magaaladaadii rumaantii waxaad Soomaali u gashay gaal dahabaha Soomaali u gashay ma sha Allah sababtii markay dhamaatay kadib ayaa waxa ii suura gashay ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed oo munaasabadan qabtay mudane Maxamed Saciid oo ah hoggaanka ururka qaybta dhaqaalaha ayaa fariin halkan ka diray oo kula hadlayo Soomaali weyn una hambalyeeyo ra'iisul wasaaraheena ummadda Soomaaliyeed Maxamed Xuseen Roble bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gees walba ay Soomaali ka degan yihiin ee adduunyada dacaladeeda kala gedisan ma sha Allah dhammaan waa idin salaamayaa waxa farxad weyn iyo amaanta inaan u hambalyeeyo ra'iisul wasaaraheena Maxamed Xuseen Roble oo naga tirsan si gaar ahaan anaga reer Sweden hadaan nahay aad maaragtay qiimo weyn nagu leh ayaan waxaan uga hambalyeeynaa guusha uu gaaray guusha aan rabnaa waxay tahay in Soomaali maanta ay mid noqoto ay wadaagto maaragtay guushan ay gaareen taasoo ah in doorasho la wada gaaro oo lagu qalbi furan yahay dadkoo dhan ay isku maaragtay niyadooda ku wada furan tahay lagu wada faraxsan yahay taasaa muhiim noo ah anaga waana guul weyn waxaan leenahay guul baa gaartay oo maalintii shalay markii aad halkan kugu soo dhaweynayna adoo maqan Soomaali jooga xaflad aan kugu qabanayna halkan waxa laga fakarayay isla arintii ay culiseed maxaa wasiir wasaaraha Maxamed Xuseen qaban doona wax arintan culis oo bixi doona maanta waxa meesha ka muujisay inaa miro dalkeedii ina tiina waa joogtay inay miro weyn ka soo baxday oo qayb weyn oo guul ah laga gaaray wax aad uga faraxsanahay oo aad mar labaad mar saddexaad waxa ugu farxeynaa arintaas guul dhammaan dadka ka qayb qaatay arintaas guushaas in la gaaro gudoomiyaasha gobolada madaxweynayaasha gobolada dadkii oo dhan oo waqti geliyay inay soo arintaas guul weyn laga gaaro guusha shalay la gaaray waa guul Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed ay gaartay oo lagu farxi doono ummaddan ku farxi doonto taariikhda